Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Duude ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug muddo 22 sano oo dalka dibadda uga maqnaa. Soo dhaweyn ballaaran ayaa suldaanka loogu sameeyay gegida diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed halkaas oo ay gaareen boqolaal ruux oo watay gaadiid kor u dhaafaya 100. Suldaan Cabdiraxmaan ayaa soo dhaweyntii loo sameeyay waxa ka qayb qaatay wasiirka da'yarta iyo ciyaaraha dawladda Soomaaliyeed ee Puntland iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug. Suldaan Cabdiraxmaan Aadan Duude ayaa markii uu ka soo degay diyaaradda keentay magaalada Gaalkacyo ayaa mid u salaamay boqolaalkii ruux ee ka qayb qaadanayay soo dhaweyntiisa isagoona u mahadceliyay. mudane iyo murwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mar labaad waxaan ku xijinayaa oo saddexaysa ikhtiyaaray aad ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta ay ku dheehan tahay marka hore islaamnimada marka labaad walaalnimada dariska wadajirka magaalada iyo ummadda ku dhaqan ama ku nool dhammaan dadkan soo baxay oo aan rajaynayo inay iskugu jiraan anwaacdii kala gedisaneyd ee mujtamaca Soomaaliyeed haba u badnaadeen dad qaraabo iyo ehelnimo waxaan idinku soo aan jeclaysanayaa inaan idin iraahdo waa naga farxiseen ama waad iga farxiseen waxaan rajaynayaa ilaahay ma hadda aan idin celinayo inay noqoto mid cindillaah idinka timaado aad iyo aad baa boqolkiiba boqol ugu mahadsantihiin marka labaad imaatinkaygani waa imaatin salaan waa imaatin gobol waa